wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland ayaa qabatay shir looga hadlayay dib u eegista mashaariicda waxaana kulankan diiradda lagu saarayay mashruuc horay uga socday Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya oo lagu magacaabo siyaasadda loo dhan yahay qaybtiisa Jubbaland. mashruucan waxaa ku midaysan wasaaradaha beeraha, kalluumaysiga, xanaanada xoolaha, wasaaradda dhalinyarada iyo wasaaradda haweenka. shirkan waxaa goobjoog ahaa madax ka socotay wasaaradaha kala duwan ee Jubbaland iyo xafiiska qaabilsan mashaariicda midowga Yurub ee wasaaradda qorsheynta qaranka. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane ayaa warbaahinta la hadlay markii uu shirku soo dhamaaday. maanta oo taariikhdu tahay 6 bishii 9aad 2020 waxaan halkan shir kula yeelanay wasaaradaha ku jira mashruucii aan muddo badan ka sheegaynay TV-ga ee ahaa mashruuca horumarinta siyaasadda loo dhan yahay ee Soomaaliya qaybtiisa Jubbaland. mashruucan saan marar hore ku celinay halkan laga daafuray 2018 oo madaxweynaha Jubbaland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay daafureen. waxaana ku midaysan wasaaradaha xanaanada xoolaha, kalluumaysiga, beeraha, shaqada iyo shaqaalaha, howlaha guud, arrimaha gudaha, dumarka iyo xuquuqul insaanka, dhalinyarada, wasaaradda dhalinyarada iyo waxaan ka wadaa iyo ciyaaraha, wasaaradda ganacsiga iyo kuwa kale. mashruucan marka waxaa weeye xogaa soo jiitamay, sababta soo jiitamayna waxay ahayd wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal lagu ogaanayo baahiyaha ay qabaan dadweynaha ku dhaqan deegaanada Jubbaland si loogu helo mashaariic lagu daboolo baahiyaha dadweynaha Jubbaland. Maryan Ladan Xuseen, Puntland TV, magaalada Kismaayo.